cisbitaalka Al-Manhal ee magaalada Laascaanood waxa uu ka mid yahay cisbitaalada ugu shaqada badan ee ku yaala magaalada Laascaanood. Cisbitaalkan oo bixiya adeegyo caafimaad 24 saac si joogto ah ayaa mar uu maanta booqday TV-ga Somali News. Waxaa halkaasi ka muuqday mashquul aad u badan oo ay ka socdeen hawlo caafimaad oo kala duwan cisbitaalka. Dr. Maxamed Cabdi Ismaaciil Shiin oo ah gudoomiyaha cisbitaalkan ayaa nooga waramay xaaladda guud iyo waliba adeegyada kala duwan ee cisbitaalka uu ka bixiyo 24 saac. cisbitaalkan la aasaasay 2006 oo micnaheedu 10 sano inuu aasaasay yahay oo ujeedkiisu waxa in bal xagga adeegyada caafimaadka bulshada uu wax weyn ka qabto. 10 sano waxaan karnaa injaasaad badan ama guulo badan uu sameeyay, wax badanna way dhiban yihiin. guud ahaan cisbitaalku waa cisbitaal si functional ama joogto ah 24 saacadood shaqeeya, adeegyo kala duwan bixiya oo ay ka mid tahay qaybtii daaweynta guud, caruurta, qaybta dumarka iyo qaliimadooda iyo dhalmadooda iyo daaweyntoodaba, qaybtii ilkaha oo hadday noqon lahayd buuxinta, saarista, gelinta, nadiifinta. aan ku faani karno in qaybtaasi aad u shaqeyso. sidoo kale qaybtii indhaha oo daaweyntii iyo muraayadihii iyo qaliimadii si maaragtay routine loo sameeyo labadii bilood mar. haddana aan filayn in kowda bisha lixaad uu ka bilowdo magaalada Laascaanood qaliinka indhaha. inahaasi waxaa dheer in shaybaad aad maaragtay u qalabaysan, dad aqoon fiican u leenahay ay joogaan, uu shaqeeyo. bukaan jiif aan leenahay ilaa 20 sanadooda. agabkii kale wax lagu baarayay haddayna ultrasoundka iyo aan leenahay. intaasi waa adeegyada uu bixiyo cisbitaalku. dhinaca kale cisbitaalku wuxuu ku faanayaa inuu teaching hospital ama cisbitaal waxbarasho u yahay ardayda caafimaadka jaamacadda Nugaal, kulliyadda caafimaadka oo ay ka faa'iideystaan shaqaalaha caafimaadka ee dhakhaatiirta ugu horeyso, iyagoo aan doonayn inay noqdaan mustaqbalka dhow kuwii bedeli lahaa ama la shaqeyn lahaa xirfadlayaasha hadda jooga caafimaad. arrintaasi annaga iyo jaamacadda Nugaal si maaragtay waxaan ka nahay dacwadaad muddana waa kusoo shaqeynay. runtii hadda arday badan oo waxaa jira hadda wax qabataba. taasi waa mid. dhinaca kale cisbitaalku waa ilaa haddeer bishii koowaad January ilaa iyo maanta bishii shanaad lagu jiro wuxuu soo waday qaliimada dumarka oo gacantu lacag la'aan tahay marka laga tago dawooyinka iyo waxyaalahaas oo qofku isagoo iska bixiyo. laakiin qaliinka oo qiimo $350 gacanta qofka laga qaadi jiray 5 bilood free buu ahaa. dumar badanna waa ay ka faa'iideysteen iyo ubad badanna lagu kala badbaadiyey. haddana kule siduu qorshu ahaa bil baa ka harsan, balse in la sii cusboonaysiiyo baan dadaalano. ugu dambeyntii cisbitaalka Al-Manhal ayaa waxa uu ku deeqay adeegyo fara badan oo si bilaasha uu bixiyo. waxaana adeegyadaasi ka mid ah adeega loogu magac daray u hiili hooyada, kaasoo si lacag la'aan ah qaliin loogu sameeyo hooyada uurka leh. Mawlid Ismaaciil Haradige, Somali News TV, Laascaanood.